بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي جونا الشيخ وفضيلتنا أخ محمد إدريس الشيخ وحا وقت بدن لقلي وطلب بدن قسي ومفيدة هوله أنو كبلونا يوروب وأنو نقود عيننا إن شاء الله ميزان كيس حسنات كان الله صاره. هذا الشيخ وحا ربا إنه نوسو جدي ترى قوة جهنم فونديشن iyo dadka ganacsatada oo dhulkii jooga waxa ay ku darayaan foundation iyo sida loo fadlan Sheikh Maxamed. Alhamdulillah rabbil alamin. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وان سلام يا ولالها دغي سندونه كليب كنا معجل كان وقبنايو أخونا فارح دلمر انت كدب ولاليال كلمه دردارنka ah oo iga codsaday walaalkii Faarax oo naga safraya maalmahan una safraya xaggaas iyo dalkii iyo dadkii waxaan u soo gudbinayaa awalan hambaliyo ku saabsan Noor Foundation oo dhaqaaqday hay'adda Noor alxamdulillah oo dalkii iyo wadankii aan u dhalanay inay wax ka qabato u istaagtay dad badanina ay isu kaalmaysteen oo isu ka kaashadeen sidii wax loogu qaban lahaa dalkii xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo dhinac kasta oo wax laga qaban karo ayna ugu horeyso hadda camalka la dhaqaajiyay ama shaqooyinka ugu horeeya oo la qabtay iskuulkii ama dugsigii Ali Fahii Geedee magaalada Qandala كذلك هذا مشروع صعده بلدين هي مشاريع ذكر دبجوكته إن شاء الله تعالى waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in walaaluhu ay u dhaqaaqaan camalkan isaga ah oo ah in la iskaalmaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka muslimiinta inay khayrka isu kaalmaystaan sida alla subxaanahu wa tacaala u amray oo uu yiri وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu faray dadka mu'miniinta ah inay khayrka u tartamaan oo ay kuwa u dheereeya noqdaan qof walba isku dayo inuu noqdo inuu qofka ugu dheereeyo khayrka uu noqdo sidoo alla subxaanahu wa tacaala uu yiri fastabiqu lkhayraat sidaas oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wafcalu lkhayra لعلكم تفلحون إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فضل قوين وحويه قفكي خير كأديريه خير كنا يريس الملح هل درهم هالنقضه هل دينار هالنقضه كلمة معروفة وقفك كتر هالنقطه والخير كهل قفته ودردارا هالنقطه إن خيرك ليسكو ديريجليه أو ليسكو كالميو ليسكو قرب قالوا هالنقطه waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin abwaabta khayrka ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala cidda ayaan wanaagsan ayuu waafajiyaa runtii waxay la tahay marka hadda in dadka walaalaha ay u istaageen hay-adda Nuur meel walbana hadda laga dhaqaajiyey arrinkaasu haddii lala soo daahay yacni maanta waxaynu ku faraxsannahay in la bilaabay marka qofku hadduu wax bilaabo ma daahsana laakiin haddaanu waxba bilaabin markaas way markuu daahsan yahay laakiin hadduu khayrka bilaabo waa tegayaa waana gaarayaa meeshii uu socday waxaan aaminsanahay insha allahu tacaala khayrka haddii si wanaagsan loo wado lagu dadaalo meel kastoo la joogo ama Dubay ama Boosaaso ama Yurub ama Maraykan meel kastoo la joogo in khayrka la dhaqaajiyo la isu kaalmaysto kulamada la qabto wixii la bixin karo la bixiyo qof walba dadaalkiisa iyo tabartiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu horgeysto arrinkaas si wanaagsan loo maamulo oo xisaabaadkeeda iyo nidaamkeeda leh runtii waa arrin wanaagsan oo ku faraxsanahay hadda inaan aragno inay gacanta maanta ugu jirto shaqadii dad si wanaagsan u nidaaminaya oo shaqadii soo gudbinaya xisaabaadkeedii feedback ka soo bixinaya wixii ka soo noqda meeshii wax la geeyay dadkii haddana u gudbiya wax ka soo duuba arrinkaas wayna shaqadu ku socon kartaa marka waxaan walaalaha xagga naga soo jirana u dardaarmaynaa sida kuwa Yurub joogaba aan u dardaarmayno iyo Maraykan iyo meel kastaba inay khayrkaas ku dadaalaan khaasatan dadka xaggaas jooga mas'uuliyiinta Noor Foundation culays badan baa saaran maxaa yeelay iyaga la soo eegayaa
wax badan camalkan inuu najaxana waxay ku xiran tahay sida iyagu ay u shaqeeyaan dadka jooga meelahaas ka agdhow camalka Dubay iyo Boosaaso iyo Qandala iyo meelaha ku dhow dadka jooga ee shaqadu ay ka fulayso dadkaas weeye dadka runtii shaqada culeyskeedu saaraya dhinac uu ka saaran yahayna waxa weeye inay wax la arki karana soo gudbiyaan warbixinada ay isdaba joog noqoto shaqadu hadba heerka ay marayso ay dadka usoo gudbiyaan Yurub jooga iyadoo filimo ah iyadoo sawir ah iyadoo report ah wixii xisaabaad la soo gudbiyo ay kasoo bixiyaan siyaabihii ay u baxeen kharashyadii siday u baxday waxyaalaha soo baxday si kalsooni ay dadka u siiso oo dadka ay ugu dhiiradaan inay shaqadaas insha Allah tacaala horay usii wadaan marka waxa ugu weyn oo shaqadan lagu qabtaa waa kalsoonidii haddii la helo dadka kalsoonidoodana waxa lagu heli karaa in la keeno shaqada sidii loo qabtay iyo wixii la qabtay inay dadka waadix u noqoto oo muuqato oo banaanka la soo dhigo ay dadku arkaan oo indhahooda ku arkaan marka itusoo itaabsi hadday noqoto dadku waxa weeye marka way ku dhiiranayaan inay shaqadii wax badan ka qabtaan acmaal kale oo kasii waaweynna waa loo gudbayaa oo cusbitaallo iyo jidad iyo iskuullo iyo jaamacado iyo institutions kala duwan ayaa loo gudbi karaa haddii lagu guuleysto midda hore midda yar haddii lagu guuleysto midda weynna waa la gaarayaa marka waxaan leeyahay walaalayaal meel kasta joogtaan horay ha loo socdo hawshana ha la iska adkayo nidaamka ha la iska adkayo wax kalena lama weynayo hamigu ma aha in lacag la helo hamigu waxa weeye shaqo wanaagsan in la qabto oo ammaano leh lacag iyo khayr iyo wax walbana waa la helayaa iyo guul ilaahay idankiis ilaahay khayr baan idinka rajaynaynaa camalkiinana Allah barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda hana waafajiyo meel kasta aynu joogno bisha barakaysanna lagu dadaalo khayrkeeda وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله وحنا أنا الشيخ محمد ودي سؤال يدتكو إن بدنا سؤال اللي أنا محو الشيخ محمد وأركا وددا قندلا يبوظاص إسكو حرتا إن لقى قبا كرامة إليكو فضوضها تلا هاو حويل. يعني شقدا جدكو وشقا بلاران أو كعلوس مدة إسكولك إيو حيالها مارك كوبان أو هاول بدن حوغا أو باهان أو فرسمها لكن عن سلايا هدي أي نور فاونديشن كوبوليستو إن شاء الله تعالى شقدا إسكول لدا ير هدا إنه هاينو هدينو كوبوليسنو شقدا كلنا وجود بكرنا وأنا الله قبان كرا بإذن الله تبارك وتعالى لكن وحيكو عرنتاي sida hadda aynu uga soo baxno shaqooyinkan hadda aynu hayno oo iskuulada iyo waxyaalihii laynoo dhiibo sida aynu uga shaqeyno iyo sida shaqadeenu administrationally management ahaan ay u noqoto shaqo tifatiran oo dadku kalsooni ku qabi karo taas aynu markaa mu'asasaadka kale oo waaweyn ama adduun weynaha aynu dadka walaalaheena muslimiinta oo kaleeto iyo ku qancin karnaa organization dhisan nidaam leh xisaabaad leh shaqaay qaab wanaagsan oo system u shaqeeya la garan karo shaqadiisa iyo wixiisa ay dan maartay fil clear yihiin documentation kiisa leh license kiisa leh accountadiisa leh meelaha loogu soo hagaago leh shafaafiyadaas iyo transparency sidaas hadduu yimaado insha Allah tacaala jidad baa sheegtay jidad baynu fulin karnaa hal jid maaha insha Allah ما شاء الله الشيخ محمد waxaan u rajaynaynaa inuu islaam kana ilaahay u daayo Soomaalidana u daayo khaas ahaan inaga inoo daayo waxa ka caqabtay kilibkan anagu afaar ayaasin dalmar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.